اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، ثمرات تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيره. ملها لقى قوسنا يا قرآن كريم كأهل الآخرية سيبا بشهر رمضان إلى كوبية من فائدة وقف وكهل يا قرآن كريم كأهل وآخرية لنا والعظة أيين ترين إن شاء الله. فإذا ذو الرئيسة وحوي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن ووصفه بأنه مثل الأترجة، وأمان النبي قفك قرآن كريم كان لنا ولا أخرية وحانو كتل ما إنه لمدي هاي أترجة. أترجة واجد ومن معان أتقونه sida liintan liin xaalida la yiraahdo halka ka soo carfaysa markaad cuntana macaan wuxuu la macaan yahay iimaanka ku jira qofka muuminka ah, wuxuu la udgoon yahay quraanka kariimka ah. waxda qofka lagu sifeeyana macaan iyo udgoon baa u fiican. waxa faa'iidooyinka kamida mudaa'afatul hasanaat an kulli harf min huruf alquran. قرآنك الكريم كحرف كستود أخرده واحد كهليس توبان أجري مركا كل أنت حرف أخرده أبا أجري كحرية. حديث كي صحيحة ها ابن مسعود ورينا يترمذي كسقنا نبي يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سد حرف بككوبي رجال ألف لامين mid walbana qofku toban ajri buu leeyahay. marka ku xisaabtan intaasoo xarafeed akhriday mid walba ajri lagu qoray. midhaha waxa kamida tajtami'u al-malaa'ika wa tanzilu ar-rahmatu was-sakinatu 'inda al-ijtima'i li qira'ati al-Qur'an. malaa'ikta Ilaahay baa soo degaysa oo deganaanshaha ku soo degaya oo naxariis baa ku soo degaysa meesha Qur'aanka lagu akhriyayo. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. سداسنا حديث كالنبي كقصة قوي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة ورنا يا مسلم كسوغان مراها وحكم إذا قرآن كآخرين تيساين وكقو صنين تقوية الإيمان وزيادته. إيمان كانوان حوغي سنة يوان كبعية مركان القرآن كآخرين wax qiimo badan weeye wixii iimaankaagu ku kobcayo oo waa dib weyn hadii iimaanku ka qoonmo. iimaanka Allah inagama qoomay qardoofada iyo qoonta ku timaada iimaanka waa qalooc weyn, laakiin inuu ku koro ku kobcay iimaanku oo iimaan waafiyo qanjaha jooga uu noqdaa wax weyn weyn. ilaahay baa sidaa ku amaanay dadka aayaadka akhriyay wuxuu yiri innamal mu'minuuna alladhiina idhaa dhukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. dadka alla yaqaankii waxa weeye dadka aayadaha Ilaahay marka lagu akhriyo iyaguna dabcan ay akhriyaan iimaan ba aayaduhu kordhiyaan. marka heesaha iyo hadallada xun iyo laqwigu iimaanka dhimaan iyo dhageysiga macaasidu quraanka kariimka ah iyo qowlka allana iimaanku siyaadiyaan sida quraanka Ilaahay uu ku cadeeyay. بدأ إنه كجوسنا إنه وحكم إذا قارئ القرآن غير الجافي عنه يكون من أهل الله وخاصته. قفك قرآن أخرية يكون رقمية غير الغالي فيه والجافي عنه. أنا هاي مت كقلالي أما كقلالي كقلالي وحلوتش إذا كمان رقمية كقلالي نو حلوتش إذا يسقى إسلوات كل رقم يستابو غلو يسمينه oo dheeraad ku dardaraya iyo bidco. marka quraanka qofka sidiisa ugu dhaqma waxa uu kamid yahay Ilaahay ehelkiisa iyo dadka u gaarka ah. adoomaha alla ka agdhaway ahlul quraan ahlullaahi wa khaasatu. quraanka cid ehelka u ahay waa ehelkii Ilaahay iyo kuwi khaaska u ahaa. ibn maajah buu xadiidkaas ku sugay. faa'iidooyinka waxa kamid ah yashfa'u alqur'aanu li saahibihi yawm alqiyaamah. maalinta qiyaamaha quraanku wuxuu u shafaaco qaadaya uu u argeynaya
ciddii ehelka u ahayd akhrii jirtay kuna dhaqbi jirtay الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة حديث كورنا أبو أمامة الباهلي في صحيح مسلم والنبي يقول صلى الله عليه وسلم السجى إنه بشارين قفك مؤمن كما أنت قيامها وحو إرجينيا قرآن كي وآخري شري كريم كها يصومك أنا وقت صومنت قرآن كنا وضع خريس لبا إرجيكم مقوي إلهي كاجا إرجينيا إلهي صفدي سيا قرآن كي مركو كوير جايو عمل كي صالح هذا لا تمده وكوير جايو وإرجع أقبل إن شاء الله إلى مركو ربا إذا كألا سيء ما أنت إن قلنا إرجع بين وبعن قال ذو مركي إرجع وياه وحيلين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم نصيب ده هذا نقول عضي ما هي سنة ما أنت وحنا إرجعية ما هي سنة حكتية طل الدفاع وحيارك ينضدك مؤمنين تا إرجع وبضنت marka arintaasina waa arin qaali ah faa'iidada sideedaad waxa weeye yazdaadu alqaari'u alqur'aani binnuuri walbaraka laba arrimood oo qur'aanku uu xambaarsan yahay oo ah barako iyo nuur labadaaba qofka qur'aanka ka ag dhow akhriyaya waa ka helaya oo uu ka sahay qaadanaya waazalnaa ilaykum nuuran mubiina ilaahay baa wuxuu waxaan idinku soo dejinay dad yahow iftiin cad iftiin muuqanayo qodee qur'aan kariimka qalbigu iftiimiyaa dhaqanku iftiimiyaa qiyaamuhu iftiimiyaa ummaduhu markay bilaa qur'aan yihiin laa zaaluu fii dulumaat gudcur bay ku jiraan markay dadku qur'aanka haystaanna meel waliba way iftiimaysaa barakaduna waa saasoo kaleo ilaahay baa wuxuu uhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaati waliyatadakkara ulul albaab kitaab baa soo dejiyay baa ilaahay wuxuu adaan kugu soo dejiyay nabi maxamed si aad ummadda u gaarsiiso waa kitaab barakaysan sida aayadihiisa loo dhuuxo oo loo macaansado oo loo dhadhamiyo ilaahay loo fahmo liyadabbaru aayaat oo loogu waantoobo marka baraku ilaahay ku sifeeyey marka haddaad dee qur-aankii akhriyayso oo aada la nooshahay ood ku cibaadaysanayso ood ku camal falayso barakadun baad dhuranaysa wax inooga baahi badanina ma jira barakada ilaahay faa'iidada sagaalaad ee qiraa'ada qur-aanka aynu ramadaanta akhriyayno ka helayno waxaa ka mid a qiraa'atu lqur'aani tuthabitu lquluub wa tushfi suduur inaad qur-aanka akhriyaysaa waxay keenaysaa quluubtaa degta qalbiguna wuu caafimaadaa dadkan adduunyadana qalbiga in badanoo ka midii ka xanuunsanaya qalbi barar baa ku dhacay dad badan ood arkayso waxaa la yidhahdaa istarastiga iyo u qaadan waaga noloshiio ka hor timaada qofka waa qalbi barar markaasaa xididadii wadnuu xidheen ulxarbiday gelgelin jireenna dee ma garanayaan oo qalbi iimaan la-aan iyo gaalnimo ay awday xididadiisa maxay macnaa u hayaan gaaladii waxba uma hayaan marka qalbi bararka noocaas ee dadka ku dhaca qur-aankaa daweeya qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaq liyuthabbita aladiina aamanuu wahudan wabushraa lilmuslimiin ilaahay baa wuxuu yihi dadka waxaad ku tidhaa nebi maxamedow waxa soo dejiyey qur'aankan oo ilaahay ka keenay ruuxu lqudus malakii malakuljibriil la odhan jiraa keenay ilaahay xaggiisuu ka keenay xaq buu ku keenay xikmadduna waxa weeye si uu tahbiit ugu sameeyo oo qalbigooda u dejiyo dadka ilaahay rumeeyey oo ugu bushaareeyo marka halkuu qofku ka tamariyo ee uu ka istaarmo waa qalbiga marka hadduu qur-aanka akhriyayo sacaadu helaya markaasuu degayaayoo raaxaysanayaayoo nasanayaayo wixii ku dallacmi lahaa ama soo haraaci lahaa oo dham uu ka degayaa ile mushkilad baa ku oogan dadka aan qalbigoodu fadhiine marka waxaa sacaadada raaxada nolosha la yidhaahdo qur-aanka laga helaa dadka qur-aanka la noolis markay tijaabiyeen nasashadaa iyo farxaddaasay dareemayaan u seexanayaa qofku wixii uu helaba wuu iimaansanayaa diiqad iyo dhibaato kuma jiro nolosha ma saluugayo waxyaabaha laga dhaxlo weeye qur-aanka in la badsado oo aada akhrido qur-aanka kariimka ah arrinta tobnaad qaari'u lqur'aani yadkuruhu allahu subxaanah qofku hadduu qur-aanka akhriyayuu la noolyahay ilaahay baa isagana xusaya ilaahay wuxuu ihi fadkuruunii adkurkum
washkuruu lii walaa takfuruun ixusa dad yahow aniguna aan idin xus ii mahadnaqa oo hayga gaaloobina yaa hadlaya waa ilaahay weynaa subxaana wa tacaala ilaahay weynaaba addoomaheena yaryar la hadlaya wuxuu leeyahay idinku ixusa aniguna waan idin xusi waa ballan idinku ii mahadnaqa oo hayga gaaloobina ma muddo ilaahay laga gaaloobo nicmadiisa la dafiro nicmooyinku ina siiyeyna waxa ugu waaweyn ee wuxuu ilaahay isku xigsiiyey dikrigii iyo shukrigii dikrigaa ka mid a waxyaabaha aynu ilaahay ugu mahadnaqayno oo dee deganaansho weynaa aynu ka helayna dikriga u weynina waa qur-aanka innaa naxnu nazalna dikra asmaada iyo magacyada qur-aanka dikri baa ka mid a markaynu ilaahay xusayna waxyaabaha aynu ku xusayna waxaa ka mid a akhrinta qur-aanka kariimka ah ilaahay aynu la faqayno aynu la sheekaysanayno hadalkiisa aynu ku raaxaysanayno dhegaysanayno marka kol kastood ilaahay kol kastoo qur-aankiisa akhrido isaguna wuu ku xusayaa ila isagii baad xusaysaa من ذكرني في ملأ من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه على معنى الحديث قفك سيجارة يحصى أنا سيجارة أنا حصيا قفك جمع دحدي يقول حصى أنا ولا جمع كيسة كخير بدن بكو حصيا وملائكته marka dikriga aynu wadno waxa kowka quraanka kariimka marka haddaad maalinta ka qado quraanka dikri weyn baa ku dhaafay ilaahayna inuu caalamka sare ka xuso adigoo caalamkan hoose jooga miskiin yara wax weyn weey ilaahay wuxuu wala dikrullaahi akbar ilaahay xuskiisa weyn xuskaad ilaahay adigu xusayso waxa ka weyn ku isagu ku xusayo markaynu ilaahay xusaynana waxaynu ku baadi doonaynaa inuu isagu ina xuso dadka qaarkood baa haddii la yidhaahdo waddanka maamulkii u sarreeyey maanta wuu ku ammaanay wuu ku taageeray wuu ku hadal hayey wallaahi wax wanaagsan weeyaan buu odhanaya halkaasaa laiga hayey halkii dadka laga hagayaa laiga hadlayay hadal hayey miyaa oo laiga ammaanay arrinkay waa weyn ilaahay addoommahoo dhan xukumayey ee iska lahaa ayaa ku ammaanaya oo ku xusaya subxaana wa tacaala qaari'u lqur'aan waa arrinta 11 midhaha ka mid ah يزداد علما وحكمة قفك قرآنك أخرية علمنا وكررسانيا حكمتنا وكررسانيا إلهي بأوحل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وآيات عرعب وكتشرة ضدك علمي قاله قلبي قوله مركا علمي يوحو قرآن يا قرآنك أخرنتي يسيبوا لها إسراعي يو علمي قوة يوحى لغيها لها قرآن كريم كان وهو بدأي هاي ندمر الباء براتب معنيس markaad aayadii oo macnahooda taqaana akhriyayso kolba aayad baad isdul taagaysaayo kolkaasaad wax kugu laabanayaan tafsiirkaad ka eegaysaa iyo waxa looga jeedo cilmi badan iyo jawhar badan baa ku kordhaysa iyo faa'iidooyin badan القرآن لا يشبع منه العلماء cid kala daayo quraanka culimadu kama dhargaan waxaynu ogsoonahay hadal wal oo aad ku yara celcelisaba waad ka nacdaa waad ka xiisa dhacdaa illa القرآن quraanka isagu waa hadalkii ilaahay oo hadal lama mid ah oo lagama xiisa dhacaba marka cid kasto fasirta iyo cid kasto wax ka qorta iyo cid kasto akhridaaba way sii jeclaysanaysaa oo lagama dhargo marka hadii aad doonayso xigmadu inay ku biirto cilmiguna ku bato maalin walba aayaadka la noolaanaysaayo in baad faa'iideysanaysaa cilmigoodii iyo xigmada ku jirto oo waxaad isku dayaysaa haddaad aqoon badan u leedahay quraankana inaad adigu fawaa'id dheeraada ka keento oo nolosha iyo waaqica ku sixi karto 11 ka faa'iido baynu ka soo qaadan karnaa faa'iidooyinka badan quraanku uu leeyahay oo ajrigii faraha badnaa inuu ka helaynaana uu dheer yahay xigmadda inuu akhriyaynaaba waxa weeye inaynu ilaahay ugu cibaadaysano subxaanahu wa tacaala cibaadooyinka u waaweyn ee rabadaanta lagu camirayo ku jira quraanku ama dad la akhri ama dad u dhig ama adigu dhigo ama dhagayso ama akhri intoo dhanba laabudda an naciisha maca alqur'aan inaynu quraanka la noolaano baa muhiima maalin iyo habeenba وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته